kusoo dhawaada janaalka dhacdooyinka dunida tuyub ood uga barateen barnaamijyo xiiso badan. maantana mowduuca waxaan idinkugu haynaa dhiirigelin ku saabsan sida loo daweeyo dadka fashilmay. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biid oo nagu caawiya subscribe-ta, sidoo kale like-ta hanaga ilaawin si ay dhiirigelin noogu noqoto. sida aan wada ogsoonnahay, dadka intooda badan waxay ka murugaan arrimo la xiriira hamiga. hamigu waa rajo, rajadaas oo aad sugaysid. rajaduna waa riyo in uu ilaahay ku rumeeyo aad sugaysid. iyana sidoo kale dadku waxay ka baqaan hamigaas ama riyadaasi maxay noqon doontaa. arrintaas walwalka ah ee dad badan dhibta ku haysa, waxaan ku dhiirigelinaynaa in aysan wax murug ah iska saarin rajooyinka iyo riyooyinka weli aan rumoobin ama la gaarin. haddii aad daawada xaqiiqada ah doonaysid, fadlan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhnow. wax walba way hagaagi doonaane. hana ka quusan, waayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aankiisa mucjiska ah inoogu sheegay aayadan: laa taqnad min raxmatillaah, ina allaha yakfiru dunuuba jamiica, innahu huwa alghafuuru raxiim. aayadan oo macnaheedu yahay ha ka quusan raxmadda Ilaahay, waayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dhaafaha dunuubta oo idil, waana naxariiste. cid ka naxariis wanaagsanna ma jidho. waxay dadka intooda badani isweydiiyaan, maxaan sidan u yeelnay ama u samaynay? taas waxaa jawaab u ah, inta aanan koonkan ama dunidan lagu keenin ayaa la qoray wax walba oo noloshaada ku saabsan. ha ka welwelin ama ha ka baqin waxa aad fashay. way dhaceen, ka soco. calaamadee khalad walba oo aad fasho, kadibna ka baro cashar muhiim ah si aadan beri ugu laaban khalad la mid ah khaladkaas. waxaan hubaa haddii aad ku dhaqantid saddexdan talo in aad adduun iyo aakhiraba liibaani doontid, guuleysanaysidna. waxayna kala yihiin sida tan soo socota. Number 1, wax tegay iska ilow oo ha raacin, waayo Soomaali ayaa ku maahmaahday wax tegay tiigsimaad ma leh ama raac ma leh. Number 2, waxa hadda taagan ama dhacaya isla waqtigaas inta aad ka awoodid ka faa'iidayso. fursad walba oo kusoo martana booskeeda munaasibka ah uga faa'iidayso. Number 3, ha ka welwelin waxa dhici doona. habka ay noqon doonaan maahan mid adiga lagala tashanayo, mana ahan mid adiga kaaga baahan rumayn. kaliya waxa aad awoodid ayaa ah in aad dadaal muujin kadib. guul iyo fashil kii ku yimaada ku qanac. ogow, qanaacada adduunka ayaa loo baahan yahay ee maahan in lagu qanco camal la'aan. cibaadayso oo Ilaahaga ka baq. wax walba way kuu rumoobi doonaane. waxaan kugula talinayaa in aad ka shaqaysid farxadda iyo horumarka dadka kale. waa hubaal waad gaari doontaa hami walba oo aad nolosha ka leedahay. halkaana waxaa inoogu eg barnaamijkeenii aan uga hadlaynay dhiirigelinta iyo habka loo daweeyo hamiga murugada keena. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waan idinkaga mahad celinaynaa daawashadiina qiimaha badan. waa anigoo ah Guuleed Cabdallah oo idinkaga tegaya sidaas iyo fii amaanillaah. asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.